بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد خير الله إنه وافجيه waxaan filayaa tan iyo saaka waqti dheer baad fadhideen waxaway nasashaa waa isaga baahnaan lahaydeen wixii wacdi ahaana culimada dhameeyay kelimada kooban ma rabaan aan ku daro oo la xiriira qaybta sifaadka iyo aadaabka daatiga ah ee qofka laga doonayo qofka doonaya dacwada iyo risaalada dadka inuu gaarsiiyo waxaan jeclahay kelmadeeda ku soo ururiyo sifaadka daatiga ama suluuga iyo qaab dhaqanka laga doonayo inuu ku tilmaanaado si uu tusaale wanaagsan wixii wanaagsanaa afka uu ka sheegayay oo dhaqan tusaale wanaagsan ugu noqdo oo wax ka tilmaamaya waxaan dhihi lahaa marka koowaad waxaan isleeyahay waxay ka bilaabataa qofku waxaanuu dadka ugu yeerayo inuu isaga laftiisu rumaysan yahay camalka la qabtaay midna waa mid nacfi iyo dankoo kooban laga leeyahay oo ku shaqaysa ah midna waa mabda iyo risaalo ahaan inaad u xambaarsanta markii qofku dacwadan dadka uu gaarsiinayo labadaas sinfi bay dadku isugu dhex jiraan dad baa u sameeya cibaadaadkan iyo dacwadan inay tahay shaqo iyo xirfad aan u samaynin inay tahay mabda iyo risaalo uu xambaarsan yahay oo wadnad gaarsiinayo saas darteed dunida muslimka waxaa ka dhaca in muadinkuna nin yahay oo ku shaqaalaysan yahay aqimaadda salaadana nin kale ku shaqaalaysan yahay saas darteed muadin 20 sano masaajid muadinkoo weligii ku tukanin waqtiga aadaanku yimaada wuu furtaa wuu aadaamaa alaabtii wuu kuxiyuu xiraa iriduu ka baxaa waad arkaysaa macallin dugsi dhigaya iskuul dhigaya maaddo diineed laakiin dhaqan diineed baan lahayn laakiin maadada sida uu soo diyaarinayo iyo sida uu yaqaano waa la yaabaysaa hawshaasuu qabsanaya markuu halkaa ka baxo baa ugu dambaynaysa inta kale maba khuseeyaan waxba waxaa dhacaysa macallin arday dugsi hayo ardaydii dayacan yihiin qur-aankii durba dhammayn waayeen mid kale ay durba dhammeeyeen intuu arka inuu yidhaha waryaa carruurtaa dadejini maxaa yeelay durba hadday baxaan dee booskoodii yaa soo geliya oo biilkii iyo reerihii muhiimadda uu ka eegaya inay tahay dakhliga ka soo gelaya muhiimaddu inay tahay inay xirfad iyo wadiifo iyo shaqo tahay dee hadday sidaa noqoto qof aan islaam ahaynba intuu bartay imaam waa noqon karaa khudbadana dadka waa u aqriyi karaa la xirfadaha waa la bartaaye macallinna waa noqon karaa maadada jeediya waxaan rabaa inaan idhaahda dee waxani markii mabda la xambaarsan yahay mujtamac in la bedelo la doonayo adigu dhaqankeedii inaad yeelata la doonayo waxay ka bilaabataa waxaanaad dadka ugu yeerayso waa inuu mabda iyo caqiide kaa noqdaa aada rumaysan tahay inaan kaa noqonin manfaco iyo xirfad shaqa ayna kaa noqonin shaqada iga gashay waan ku sugayaa waan ku meel gaarayaa meel kale oon biilka ka raadiyaan waayey dee anugu dan badanba kamidii carruurta inay qur-aan bartaan inay baranin waxaa iga muhiimsan waxoogaa biilkii bishii aan ka helay sa hadday noqotaay qofku wuxuu dhalay wax miro badan ma dhali doono waxaad noo noqona sidii xadiidku ahaa laa takun ka shamca shamac oo kale ha noqon tudiiu linnaasi wa tuxriqu nafsaha dadkana iftiin bay siinaysaa iftiinka dadkuna wuxuu ku imanaya iyada inay isgubayso saa darteed waxaan is leeyahay qofku si ugu toosnaado dhaqankii islaamnimada iyo ducaadnimada u yeesho waa in dacwadan iyo diintan cibaado ilaahay ugu dhowaanayo oo qurbaa waa inuu yeeshaa taasi waa qodobka koowaad is leeyahay raggu waa ducaada ee mujarad xasuusin bay u baahan tahay aayaad iyo axaadiid badan uma baahna qodobka labaadan is leeyahay markuu qofku dacwadaa rumeeyo wanaag iyo khayr buu dadka ugu yeedhayaa
waxaa kaalmeeya hadba iimaankiisu inta uu dhan yahay. wuxuu u baahan yahay qadar min alcibaadaat waataacaat inuu yeesho isaga suluugkiisa joogtada. xisib qur-aan oo la akhristo in go-ana, salaad in gaaroo la tukado, sownka in gaaroo uu ku yeesho, dikriga iyo ducada iyo tasbiixda qeyb gaaroo uu ku yeesho. waddadaa dheer ee la marayo dhibabka badanna la soo darsayaan iyo dadkan khayrka maanta o dhan waxaad baraysaa qur-aanku fadliguu leeyahay, salaadu fadligay leedahay, soomku fadliguu leeyahay, daacada iyo qiyaamka habeenkii fadliguu leeyahay, infaaqa iyo sadaqadu fadligay leedahay, dikriga tasbiixda fasfudeydkeeda iyo ajirkay leedahay. adigii haddii aadan zaad ku lahayn gaari shidaal la-aanaa tahay, gaari bilaa shidaalaa tahay, gaari bilaa taayaraa tahay. zaadka qofku watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa, qofku isagaa la rabaa inuu isaga bilaabo. nabigana sal ly slam waa kii salaada badnaa ee soonka badnaa, markii la yidhi maxaad sidaan ugu samaynaysaana waa kii yidhi afalaa akuna cabdan shakuura. zaad fi ariiq wey, wastaciinuu bisabri wasalaa. salaadda waxay cinwaan u tahay cibaadaadka daatiga ee shaksiga iyo daacaadka ee xiriirka rabbigaa xoojinaysa. inaad zaad iyo sahay aad jidkaa dheer ee dacwada ee fitanka iyo dhibka iyo imtixaanka iyo culayska badan le ku marto. saas darteed qofku zaadkiisa salaadana ciwaan u ah oo ilaahay iimaan ku magacaabay. iimaankiisa inuu dhiso, salaadiisa badiyo. nabigu hadday arrin murgiso, idaa xasabahu shay-un muxuu samayn jiray? salaaddu u degdegi jiray. daacada ilaahay iyo ku-xirnaanshihiisuu ku carari jiray. watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa. qofku isagu inuu yeesho daaca iyo cibaada adkaynaysa xiriirka isaga iyo rabbigan uu dadka ugu yeedhayo, diintiisii uu xambaarsan yahay, shariicadiisii uu gaadhsiinayo, waa inuu qeyb cibaadaad iyo daacad yeesha. hadday suuragal tahay midaan lagula ogeyn, laa saaxiib uusan ogeyn, walaa xaasku aynan ogeyn, walaa ilmiya walaala aynan kula ogeyn, haddaad samayn kartana ka sii fiican. oo acmaal siri aada yeelan karto cibaadaada. runtii taasi waxay wax badan kugu caawinaysaa in khayr badanna kuu furmo, shar iyo fitan badanna aad ka badbaado, adiguna dariiqaad ku sugnaato. qodobka waa qodobka labaad aan isleeyahay aadaabta iyo suluga daacigu u baahan yahay wey. qodobka saddexaad aan isleeyahay inaan xasuusanno way mudan tahay. aayadda hadda sheegnay qeybteedii labaad waa sabri waay. sabri iyo taxamul bay u baahan tahay. inaad tahay qof marka horeba u caddahay u muuqato culays iyo dhib dheer inay bahashan ilaahda igu soo orod maaha. dacwadu mas-uuliyaddeeduna mas-uuliyad fudud iyo ciyaar maaha. iimaankii iyo camalkii saalixa waxaa kuu dheer inaad dadkii aada wanaagga la doonaysay baa dhib badan kaaga imanaya. inaad wanaaggii gaarsiisa mashaqo badan bay leedahay. inta dadkaa dunida cayrinaya ku lamaan baa kugu lamaanaya duruuf adduuna kugu lamaanta. wakti dheeraadoo dadkii aada wax u sheegtood wax gaarsiisana waa lagaaga baahan yahay. dadkaa dantoodii adduun iyo aakhire inay hagaagta ka shaqaynaysayo adi dabagooyadaadi iyo dhibkaaga ka shaqaynayaan inaad ka daweysana waa lagaaga baahan yahayoo dadku hadday fiicnaan lahaayeen dacwoba kaagama baahdeen. dadku hadday wada fiican yihiin dee dacwoba kaagama baahdeen. dad hanuunsan bay noqon lahayn. waxaad ka shaqaynayso waa dadkaas culaysku haystana aan laga yaaba inayna kugu kaalmayn. xaalad ku qabsatay oo wax kaa dhacayna ayna kugu garaabin. waxaad iyaga dantaad u haysay inayna kula garanin. laakiin adiga waxaa ku kaalmaynaya bisabri weeyo sabirku in badan baa qur-aanka iyo sunnada laynagu faray. laakiin waxyaabaha sabirka laftiisa wax kugu kaalmeeyaad u baahanta. waddadaa dheer bas maadaama wadiifadu ay tahay intaad awooddo weligaaba safar iyo nagaadi aan lahayn, guri iyo dugsi aan lahayn,
khayrka sheeg xumahana ka dig dadka wanaagga u sheeg khayrka ugu yeel waa intaad kari karteed nooshahayd awooddeeda leedahay oo dhan muddada intaa leeg hal qadyadoo waxaa jirta qofka aada ugu kaalmaynaysa qofku inuu amal iyo yididiilo leeyahay oo tafaa'ulku ku badan yahay oonay quusta iyo niyadjabka ku badnaanin inaadan quusan dadku dabiicadu waxay leeyihiin markay dhowr dhibaato dhacaan xataa idastay asar rusulu baa ka dhici mar waxaad gaari mararka qaarkood inaad tidhaahdo laa khayra fiih ummaddan wax khayr oo ka soo socda iyo wax khayr oo geli midna ma jirto laakiin ilahay arrintu saa inayn ahayn wuxuu inoo sheegay xataa idastayasa rusulu wadannuu annahum qad kudibuu jaahum nasruna markaasay guushu iman yasiguna inahu laa yayasu min rawxillah nabi yacquub wuxuuna baray wiilkii isagoo yar u waayey ilaa isagoo weyn oo boqoro ummado xukumo uu helay kamuunan quusan laa tayasu min rawxillaahi buu ahaa qofku keliya waxa lama eego intaad hirgelin weyday intaad gaadhi weyday keliyana lama eego intaad gaadhay mar waliba halka aad joogto iyo halkaad ka soo tagta markaa isbarbar dhigto wax badan oo weyn oo ka badan baad arkaysaa waxaa qabsoomay baa ka badan hadda dacwada waa ka calacalaynaa laakiin mar badan waxaan idhaahdaa anugu dadka mutafaa'iliintaana waxaan qabaa meel weyn bay joogtaa laakiin idinka waxaa laga yaabaa rag badan oo idin ka mida inaan arrintaa ka garaabin anugu haddaan garanayo gobollo badan oo Soomaaliya gabdhihii horreeyay xijaab qaatay haddaan goobjoog ahaa taran hiiraan oo kaleeto gabadhii horreysay way joogtaa waan garan kii joogtaa hadda haddaan joogay xamar oo intaan ka soo baxay waxa raacade madiina biiska aan tagay 3-4 gabdhood oo xijaaban aan ku arkay haddana xijaabkii halkaa maraya markaan waaga iyo halkan isbarbar dhigo haddaan garanayo masaajidda markii salaada la aadaamo inay fara ku tirisayaan dhalinyaro tukanaysa oday waayeeli oo rugcadaahum baa joogi jiray intaa waxaa ka daray nin dhalinyaro oo tukanaya waxaan la soo barbaarnay iyadoo ceebta oo la caayo waxaan garanayaa oo mar dhow annaga nala ah iyadoo iskuullada la dhigto qasab ay tahay wiil iyo gabadh in la isula fadhiisto shaati gacmo gaab iyo sarwaalna la qaato wiil gabdho iyo wiilashuba iyaday caadi tahay magaalooyinka guriga inuu wiilku yimaado hebla saaxiibkeed baa yimid la yiraahdo ay xagga iyo guriga aadaan ama iyadoo reerkooda tagto hebel saaxiibadii baa timid la yiraahdo baa caadi ah aniga shalay bay ila tahay markaan fiiriyo markaan halkaa iyo wacyiga dadku halkuu maraya aan eego wax badan oo qabsoomay iyo guul badan oo la gaaray baan arkaya markaan waxyaabo kale eegana wax badan oo xumaaday oo baaba'ay oo dhiba laakiin isku ururin markaan isbarbar dhigo inta wanaag la gaaray baa aad uga badan wanaag la gaaray baa aad uga badan waqti dheer ma ahan qaarkiin baa xilliga rag dhashay waa idin ku jiraan 1985 casarkii markaa u soo dhaadhacda jidadka xamar soddonka dhe wadnaha dhe makal mukarrama dhe طبعا 89 فبراير baa magaaladii ugu dambeysay naqshadii baa madaxay ku jirtay wali waxaad arki jirtay gabdhaha dhalinyarada yararka maraya bahal beer qaawiye la yiraahdo la xiran jiray xuduntu waa muuqan jirtay banaanka muuqan jirtay halka iyo halka hadda la joogo waxaan ugu garanayaa on xar ahayn iyadoo haween qof dumar oo salaad tukanaya ay naadirta qof weyn oo dhal ka baxday ma ahane qof dumar oo wili dhalayso tukanaysa waa dhifiya naadirayta baan ugu garanayaa ragga culimada ee tafsiirka iyo fiqiga iyo xadiidka noo akhri jiray on xasaskoodu tukan baan garanaya on xijaab iska daayay halka markaad ka eegtaan aad ila akhridaan iyo halka hadda la joogo miyana ahay wax badan oo qofka dhiiri gelinayo iyo diira gelinaya saas darteed noloshu waa sidaas magaalada Nairobi oo waxaan garanayaa uu masaajid noo yahay mawlac Gaarisa loo isku dhex yaalo oo markuu ugu badan yahay 30 qof qaada sidiisu ma dhisnaan garaash buu eed kana niman suufiya haysti
sheekh Ukaash aakhir Allah siya tafsiir noo akhri jiray masaajidka Thaarku ku akhri jiray Pakistan ay lahayn xoog baalkan mikrofoonka halkan la dhiganayaa samaacad noo ha laba wiil oo karate taqaanana harrahay fadhiisan jireen xoog baad ku akhrisan si kala male ma kala la taga malaha markaad halkaa ka eegtay iyo halka hadda dacwada iyo maraakiista iyo meelaha haysatay iyo hoolasha la fadhiisanayaan marka waxaan rabaa waan ku dheeraadayaa ku sii dheeraanine qofku had iyo goor inuu noqdo qof amal iyo tafaa'ul iyo diila leh qof mujtamaca marka uu yimaado diili iyo in wax qabsoomay horeyna loo socdo ku beera laakiin waa la jabay oo waa la baaba'ay oo waxba socon maayaan oo eber bay baxday oo dadkii nag baa la yiriyo haddii aad adigu tiraahdo waxa ma wadi kartid horey uma socon kartid haddii aad quusataba horey socod ma laha waa inay hadiya koor adigoon dee xadda ka bixinayninoo wixii jiree taxadiyaad ama culaysyo ay jira wixii kaa hor imanaya wixii dhibay jira qiimayn iyo qadarin iyo ku tashigeeda leh laakiin waa inaad ogaataa mar waliba quus ma laha mar waliba horey u socod bay leedahayoo horey baa looga gudbaa qodobka kalen isleeyahay way u baahan yahay qofka daacigihii التواضع way mujtamac wadaad macallin u tahay markaa mujtamac wax barayso asalku waa aqoon baad dheerta waxbaad dheertay ardayda qur-aanka baraysa qur-aan baad dheerta kuwaad cilmi kale baraysa cilmi baad dheerta ummaddaad tukinayso wax laguu hormariyey baa jirood dheerta bini aadamkuna waxaa abiici u ah haddii uu dadka waxyar dheeraado ama uu arka waxoogay inuu dadka ka roon yahay inuu kor isula kacaa badan lidaalika nusuusta sharcigeennu tawaaducana aada u ammaantay takaburka iyo isla weynaantana ay aada u dhaleecaysay mujtamacan qofka raba inuu wax ka bedelo dhaqanka wanaagsanna tusaayay qofka daacigihii waa inuu tawaaduca badiyaa tawaaduc waa qof mujtamaciisii ku dhex jira aan iskala weynayn aan ka madax taagaynin inuu ka qiimo badan yahay aan u haysanin iyaga qaar aan liidaynin aan yasaynin waa inaad noqotaa qof dadku ay gaari karayaan qof dadku aynay la sheekaystaan inay culays ahayn haddii ay tiraada inaan ku arkaan raba saa intaad u fiiriso aad iska dhaqaaqdo adoo kale maxaad iga arkay ay noqotay dee waa imtixaan saa darteed tawaaducu u baahan yahay suluugiisa shaksiga qofka daaciga inuu yeesho fadaa'ilkeeda iyo nusuusteeda idiin akrin maayo qodobka kale uu u baahan yahay waxaan isleeyahay aadaabta uu u baahan yahay qofka daaciga ah alqanaaca uu u baahan yahay adduunyadan qofku baahina waa leeyahay damaceeduna ma dhammaado low kaana libni aadama waadiyan min maalin labtagaa haaniyan walow kaana lahu waadiyaani min maalin labtagaa haalian walan yamlaa faahu ila turaab qofkuna arsaaqdana ilaahay baa qadarayo qofkii adduunyo doonaya inta ilaahay doonuu si ka siinaya waxna waa inuu qofku dadaalo oo risiq xalaala raadiyo oo waajibaad saaran uu guto waxna waa adduunyadu inta ay ku weynaato qalbigiisa iyada inuu wax ku qiimeeyo dadka qaarna adduunyadu gacantooda ay ku jirtaa qaarna xataa gacantooda haddayna ku jirin qalbigooda ay ku jirtaa haddii ay dunyadani aada kuula qiimo badnaato dadka dunyaad ku qiimeyn xiriirkaagu dunyu ku salaysnaan dadka hadday dunyadu aada kuula qiimo badan tahay waxaa qiimo iyo cizo kule leh qofkii maal haysta maantoo dhan waa ti ilaah yidhi walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum zahrata alxayaati dunya linaftinahum fii nin baa jaga haysta nin baa maal haysta adigoo dadaalkaaga iyo wixii risq xalaala raadinaya laakiin aad weliga ahaata midda koowaad fattaqu llaha waajmilu fi alab ilaahay ka cabsada si dariiq nadiif iyo xalaalana ku raadiya waa kow midda labaad inaad ogaato adduunyadani hoos labadiisa gelino qamaan bulxan baa laga sheegaa inay gabayadiisa ka mid ahaayeen waxaa hooska labada gelin looga dhigay yaa nina u hadhin cidna baynan u hadhin ba ilahay ku talagalay maanta nin baa haya berri mid baan haynin
dunyadana dharka waa la xirtaa uu duugooba uu dhamaadaa soo arag markuu dhamaada waa la tuuraa suuqa uu ka baxaa dharkana alaabta la gada suuqaynu naqaano model way hadda model baa socda kii 90kii haddaad keento ka war suuqa keento dadkuna dunidu waa sidaas suuqa dunida aad shaqaynaysa model mar shaqo ku suuq ku jira tahay model iyo generation iyo jildama markuu soo baxo oo isku modela qolidii hore iyo qaab shaqaysigoodii la shaqaysigoodii model laga baxay weeye odayaal wada retire way intii soo hadhay noolaatay wada retire waa modeladii laga baxay gaarigu waxaa la yiraahdaa marka hore cusub yahay wuu xiimaa markuu uu socdo wire baaguy darbi buu ku dhicay meel baadiisi il baa jabi say laftu duugoobaysa injinka u wareegayo marka dambe right off noqon qashanka lagu dari adiguna saad xawli dunida u ordayso right off baa noqon marka dambe dunida sidaas ahi raasamaal badan ma laha nin wada ururiyayna wada calfan waa qof joogo wax yaraana wuxuu ku noolaaday hel sadarteed dadaalka risq xalaal oo khayr xalaal ku samaysat inaad raadisana waa qadiyad inay dunidan iyo maalkeeda iyo jaaheeda kula fiican yahay maanta dhan ku mashquulsan tahay iyada wax ku qadariso iyada wax ku qiimaysan qadiyad kale way sadarteed waxaan ka hadlayaa waxaa weeye in qiimaha agtaada uu ka noqdo qofku diintiisa qofka taacadiisa iyo alla ka cabsigiisa qofka toosnaantiisa waxaa ilaahay kugu arsaaqday heshay laakiin kuwa xoolaha badan la joogooda iyo ka dhawaanshahooda fitna miidhan waa waxaa la yidhi ninbaa wuxuu yidhi ardayda ah nin ardaya wuxuu igu yidhi waddan bay ciraaq baan joognay buri waa hore mise seeriya ahayd waa hore dhowr iyo 80kii arday baan ahayn buri annagoo iska rafaadsan nin baa na kaxeeyey buuri macallini wuxuu ahaa meel buu na geeyey buuri cuntada dadka masaakiinta cunaano aad u nafaqo badan buu na geeyey isagu ujeedu naga lahaa labaan ahaynee xogay annagoo yar sarugsan buu arkay buuri wuxuu yidhi waxbaan idiin xikmad baan idiin sheegay hadda cunto bannaanka markaad joogto inaad dheregsantoo dhalaalaysaa lagu arkaa laakiin calooshaada maxaa ku jira cidi kuma oga waxaad soo cuntay calooshaada waxaa ku jira dadku kuma arkaan laakiin inaad gaajaysan tahay dadku way ku wada arkayaan indhahagay ka arkayaan muhiimaddu waa inaad xamaalan karto xoogna leedahay calooshana wax idinku jira wey laakiin kanuu cunay baa lay dhihi oo yaaba kuwa guurduur cidlaad ku cuntay calooshaadu intay hadashay sheegi mayso markii aad suuliya haddana cidi kulama joogto saas darteed adduunyadii kayfa maa zajayta fi dunyaa zajat waay waqtigun baad ku qaadan marka adduunyadu inayna aada ugu weynaanino ilaa xaddi maa qofku qanaaco uu lahaado isagoo qalbigiisa aynan dunidu gelin oo ku weynaanin oo wax walba duni ku qiimayna waa inuu noqdaa waxaan isleeyahay waxaa kaloo loo baahan yahay dinka daaciga in suluugiisa laga barto ikhlaas fi lcamal camalkuu qabanayo in ikhlaas ilaahay darti ka tahay qof magacdoona dadba maantao dhan markaa wada joogtaan inuu magacdoon yahay unbaad ka akhrisan maantao dhan waa anagoo salaatuleyl tukanayna waa anagoo maalin khamiisa sooman waa anagoo kacbada masaaj ku ictikaafayna waa anagoo masaajid dhisan waxaanu maanta o dhan ka sheekeynaya marka dambe wuxuu ku leey moogtay anugu ahlulkhayr baan iska ahay buu ku leey marka dambe dadku ha ku dhahaan maantao dhan camalkaagu marka waa in suluugaaga ay ka muuqato camalkaagu ikhlaas ilaahay dartiinu yahay dadka adiga u fiirsooo labada qof ee dadaalaysa qofkaad ka rumaysan tahay qofka inay daacad waxan ka tahay iyo qofkaad ka rumaysan tahay inuu dan kale kaleeya hadalkooda isku si kuu geli maayo qalbigaagana isku qiimo ka yeelan maayaan kan danta kalena inaad la sheekaysato la buunbuunisaa laga yaabaa laakiin markuu kaa dhaqaaqa khaa-intuuga unba haddaadan afka ka hadlinna uurkaad ku dhihi khaa-intuuga camalkan ilaahay maa kaana khaalisan lahu wa aqbalaa camalkaagi iyo dacwadaadii in la aqbalo cibaadadaadii in la aqbalo waxaa ka horeeya inay dadku ka aqbalaan waxaa ka horeeya ilahay inuu ka aqbalo haddii ilahay uu kaa aqbalo agtiisa ku fiicnaatana dadkan isagaa qasbaya ilahay baa dadka kuu qasbaya o qalbigooda soo jeedinaya
صدرت مرر بدن عمل كاغا إن الإخلاص كدكتو نبى لكن وحيري ما يهود دعودي وحيري عمل كي خير كها تان شرك يرلو عصبين ولا ودي ليه نصير عصبة شرك الله قد يجر هدي هذا ير أمان تعلانينه إنسان اللي هذا يرجع علانينه بس هل يرى هذا إنه كوير قريب وبل الداري ولا ودي لا هي بالباش كان الدودي دوا مر والبا أو قاد سجود وقت يقول يا شفتي السحر كي مرات كريات هاي أنا بدي الدعاء لله عمل خالص وكاغدو إنه عمل إخلاص هو رزاق ده عملا إخلاص لهين نعرف ما يشوف ضدكو وشهداء الله في الأرض ضدك كارس كتشوغا ضل جايا بنك ودات كي إنه هذا أنا هاي راورنويه مصطلح هي أريج ودات اللي يديها الله بالنقطة أريج ودات اللي يديها الله بالنقطة ما لما كعبة عن شوغني حلي من رمضان بعد محل قوي ما قرر حلي أنا قلت شوغنا كوت سطح كور بالا سوق هذا الله شيء كيستيو نيوم بودات أدو كشيء كي نين نقام ها بعد بصدي نما كان سي وحوش لغيان إدت كلا يحقر أيام بود بصدي ويرى وحير نما يحبان ينتسي كعلي مانت حبان ينتسي وسود دقني مالك عبد أكتر أو يركرون استاجي حبان ربما مانتنا ينتسي كعلي هل كم كان اللي استاجي وحين يردت كان كعبة ضوافية إمسا وداده ويريهم بالي باسنتج بقول كذا إمسي كبدا يهين هل كم بدنا ندري وحين يردت كان ما أنتم نوح كشيء يسين تذكر أنت ضوافية أنت ودن كسر سفرية أنت كعبة هيستويه إذن كواد فرفر لدانه أنت وريجية أكتنا وداده كما يردت كما هذه كعبادية طاعة بديه هنا مسلم كداي أنت سوق دن لها صدق كعبة هذا درجة هذا تكتان وحسا وسيه قرون كات كبل الله ديارة وحكول الراعية قرون ماذا كسي دقية هوتيل هذا بوحينية مسيه قلقلية إنتان مقال ولا نقاناي كشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود وهي مركب هذا قاتا مجتمع هريرها إن بدن با وحقران يسوع قون له إن بدن با خبر الله ود الله سو نوراتي إن بدن با عبادة بدن ودن أغوين إلهي كاغدو كو غربتو كنيس dadkaasi waa shuhadaa Allahi fil ardi way garanayaan dadku way garanayaan markii gaar ahaan muddo wada joogtaan qofka amalkiisu ikhlaaska u shaqeynaya iyo qof kale wala kala yaqaan aduu dadku la jooga kala taqaan ila had qiimeeyay qalbiga Ilaahay baa laakiin haduu dadku shuhadaa Allahi fil ardi waa hadii qof iyo laba iyo saddex iyo ka qarsoonto dadku dhan ka wada qarsooni mayso sadarteed dadku mujtamacu risaalada iimaanka aad wada si ay u qaataan waa inay ku qancaan waxan ikhlaas Ilaahay dartiinu kaayay تانا وقف قدر لغا باهي وحكروا لغا باهي قفك الوفاء قف أحد له بلان له قول له هنا النقط مجتمع والله انه الشهي بالله ما تقيلي أحد ما تقيلي قول بالكاكا دعي طبعا وقف من هذا ما تهاي وبقول هذا الإلالين وإذا قاب لغا بحاجر قفنا الله حريرته إن هذا عذر دارته إن ظروفته كو قبسة شيء لكن أصل كو إنه يتهي قف أحد فلن له قف أبال له ناته قف بوانا كو سمعيني قف وانا جنا ضحيس قف باحترام كام وضني احترام كان ضحيس قف هذا أحد يبلن كجليسة أحد يبلن تنايل عليس أحد يبلنته وقت يضل الله بلا ما كوكا بلان أفريكان ويا لولي بلان أفريكان وذات كان بالله ويا بلان أفريكان بس وقتها ما ينام بلا ما كده هذا لي وقتها وان بلا الناس وقتها يقولي هلا قصة دقائق ما هي بقولي وحن لفظة يتصنعيه هذه الداعية لها صفات النفاق هذا ديالته الرياء يستوتوسكي نقد العهود كي هذا ديال شيء وعد يعني الإلالين سيدتك واقبل يعني دعوتي قفكو أحدك هي قولك هي بلامها وقاضه ويقف وفاء هي من نلوية تذكي وناك هي خير كربكو النقضاي وإناد أبال كذا حيسا قولك أنت أنا كبحي محرب أنا يراهو
madaaris baad joogtaan macallimiin baad tihiin masaajid baad joogtaan a'immaad tihiin masaajiddaas waxaa dhisa dadka muslimka ee xoolaha haysta ee ganacsadaa dhista xoolaha wuxuu u bixiyey ajir buu janno ku doonayaa guddi bay masaajiddu leeyihiinoo odayaal iyo dad caamo ay u badan yihiin laba mafhuum baa midka khaldan baa badan midka saxan baana yar waxaa badan imaamkii iyo mu'adinkii iyo macallinkii meesha joogay inay u fikiraan ay u dhaqmaan meesha nimanka odayaasha iyo guddigaasi inay iska leeyihiin iyagana shaqaalo yimid yihiin niman la xukumoo lagu amarku taagleeya inay yihiin meeshii inaynan xorriyad lahayn oo nimankaasi isaga amarku taagleeyaan miyana sidaa fikirkaa badnayn fikirkaa sax maaha fikirka saxdaa masaajidkan dacwaa loo dhisay dacwadiina adigan wadaadkoo ku saarayd dadkan ganacsatada iyo caamada waa dad ilaahay kuu soo sakhiray inay xoolahoodii iyo waktigoodii kuugu kaalmeeyaan siaad waajibkaagii dacwada u gudan lahayd oy xoolo ku bixiyaan oy masaajid kuu dhisaan oy dugsi kuu diyaariyaan oy lacag kugu siiyaan waa waajibkii adiga ku saaraa cilmigan iyo sharcigan aada xambaarsantaha dadkanna waa dad adiga kuu daayay diinta iyo khayrkii sheegitaankiisi una diyaara habeen iyo maalin haddii caawa meeshii ha loo soo jeeda la yidhaahdo adig iska seexaa lagu dhihi iyagaa u soo jeedi hadduu dagaal yimaado iyagaa kaa xigsan haddii culays dhaqaalo yimaado way kaa xigsan maxaa kalood rabtay haddaad diin iyo dacwo waday oo goobtii laguu diyaariyo oo makarafoonkii laguu soo gado oo mimbarkii laguu dhiibo oo mushaar lagugu daro khayrkii iyo dacwadiibaba garab lagugu noqdo naf iyo maal lagula garab istaagaye maxaa kalood rabtay adigu ninka hamigiisu dacwada iyo risaalada ahaa ee intaa la isugu daray mafhuumka saxdaa waxaa weeye dadkan dadweynaha odayaasha leh ganacsatada leh caamada ah ee dugsiyada iyo masaajidda guddiyada ka ah waa dad addoommada ilaahay ka mid ah iyaguna khayr ka doonaya ninkii daaciga ahaana ilaahay u sakhiray inay igu kaalmayaan si uu dacwadiisii si fiican u guto hada mafhuum saxiix saas darteed labada arrimood maxay saamayn iyo kala yeelan dadkan si aad ula macaamili markaad rumaysan tahay dadkani dad naf iyo maal u huray oo ilaahay kuu soo sakhiray oo ilaahay kuu soo adeejiyey oo adiga kuu kaalmaynaya adiga garab kuwa kow ixtiraam iyo qadarin badan baad u hayn wax badan baad u hambayn wixii aad ka tabatay waxa ka weynay hayaan baa kaaga ficnaan haddii laakiin nin meesha la keenay oo la haysta ah oo afduuban oo la xukumo oo la gumaysanaya aada rumaysan tahay intay kaa maqan yihiinna ciil unbaa intaa ku goy halkaad u ducayn lahaydna waad un habaari adiga labadaa mafhuum kan saxan qaado dadkaas maraakista jooga ee dhisayaay dadkan macallimiinta iyo aimada ee ducaadda abaal badan bay ku leeyihiin waayo adaa macallin noqdood qur-aankii iyo diintii soo bartay adaa yidhi inaan diintii iyo qur-aankii fidiyaan doonaya iyagana waxay ku dhaheen soo dhowow masaajidkii waa kan dugsigii waa kan alaabtii waa tan nadaafadii iyo waardiga annagaa kaa qaadnay korontadii biyada annagaa bixinayn adna lacag baan kugu darayna ajir ka helo ummad soo saar intay wax sii barayaan ajir kuu socdo bilaashna mehe adiga reerkaaga waa kugu biilaynaa war maxaa ka badan ood rabteen maxaa ka fiican oo qofka loo samayn lahaa intaa nimaan macallin ahayn oo loo sameeya miyaa jira iyo dad diin fidinayo oon loo sameeya miyaa jira ma jiraan dad kale xamaalanaya intaa looma sameeyo xafiiskaa la dul istaagaayo laguna canaantaa laguna caaya yaa idin canaanto idin caaya laakiin bini aadamkiibaa mafhuumkii macallinimada waxay noqotay aniga waa lay haystaaya waa lay maamushaaya cuqdad maalinkuu shaqada bilaabaya wuu buuxaa cuqdad buu buuxaa saas darteed calool buuxda fiiq baa kiciso wax yar hadduu tabto wuu qarxi macallinkii lama ixtiraamayu dhihi ixtiraamkan dadka intaa ka badan ee lagu samayn lahaa bilow ma jire inta dambe dadka waxaad ka keensata wey hadday ka arkaan qadarin iyo qiimeyn iyo camalkaaga iyo ikhlaas iyo adigoo dadaalay hadday ka arkaan madaxay kusii saarayaan waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo laba qodob
kow midka koobaadi mujtamacan suluugaagu cadli iyo insaaf waa inay ka arkaan arday baad macallin u tahay ardaydu waa inay cadaalad ka arkaan shacab baad imaam u tahay shacabku cadaalad iyo sinaan waa inay ka arkaan waa inaadan ama dhalasho ama dheef ugu kala xaqlinin ama xil iyo awood ay leeyihiin aadan ugu kala dhowaanin dadkaa aada wada tukinayso waa inay wixii wanaaga kugu sinaadaan dadka aada macallinka u tahay waalid baa daba socda ilmo walba waalid baa daba socda ama iskuul ha noqdo ama madrase ha noqoto ama dugsi quraan ha noqoto dadkaa masaajidkana rag iyo dumar bay leeyihiin yar iyo waayeel bay leeyihiin waa inaad noqotaa qof dadkii u siman oan u kala xaglinin mujtamacu hadday cadaalad waayaan ma wada socdaan qofka la rabo inuu qallooca cadaalad darrada ka saxo isku ururiyo wanaaggooda dhex dhigo labadii isku dhacda heshiisiyo waa adigii dhinac haddaad noqoto nin baa waxay rabeen nin madaxoo meesha oday ka ahaayo cadaalad darro ay ku tumayeen bay rabeen inay ku dhaga hadlaan waxay dhaheen suldaan ugaas hadday meel malax gasho maxaa lagaga dhiijiyaa wuxuu ihi mandil yaryarayd baa lagaga dhiijiyaa waxay dhaheen mandiishii hadday malax gasho maxaa lagu sameeyaa tii dhiijin lahay lafteeda malaxda gasho see la yeeli ululamrigii shamxadii kala hadlahayay awal sinfi ululamriga waa culimadii adaga meesha culumiya daaci ka ah adaa ululamrigii koobaad ah odayaasha guddi iyo magaaladu markay isqabtaan waa inaad noqotaa qofkay aaminaan ay ku kalsoon yihiin qofka u kala xaajo qaadaya qofka wax isu hambeeya leh qofka isu sabra leh halkaa inaad gaadha mansilada mujtamacu halkaa geeyaan waxaa ka mid a inay adiga sinaantii cadaaladii usinaantii ay ka arkaan sifaadka adiga ay ka arkaan bay kugula dhaqmayaan ilmaha yarka sooma arag hataa dhowr maalmood tuugyahu ku dhahda maalinka tuugyahu ku dhihi ilmahaga yarba wiilki yaroo kuraya dhowr maalmood wariyaa tuugyahu ku dheh maalinka da wariyaa tuugyahu isagoo kula ad arkay waxaad dhahduunbuu ku dhihi dadka haddaad ixtiraamto ood u sinaato ood cadaalad u sheegto oo kii wax wadaa tirahda ka daa ninka walaalkaa haddaad maanta isagoo dad xamanaya tirahda ka daa wuxuu rumaynayaa qofkii kale isaga xamanaya agtoo la joogan inaad ka daadhihi dhowr iyagoo markay is arkaan ay dhahaan maalin baan saa idhi oo ka daa buu yidhi anna wallaahi hebel baan maagoo ka daa buu yidhi wallahi anna hebel baan maagoo ka daa buu yidhi may ninkan agtiisa qof nin wax lagaga sheega ma ogola qof walba wuxuu leeyahay ninkani haddaad maqan tahay cirdigaaga waa ku difaacaya xaqoodii inaad u kala qaado oo tirahda maya ka daaya insaaf iyo cadli baa lagaga baahanya saad mujtamacii qudwo ugu noqoto qodobka ugu dambeeyaan raba inaan idhaahdo alrujuucu lilxaqi daa'ima lagaga baahanya dadku waa bini aadam dareen nafsiga la leeyahay waad khaldami kartaa arrin ra'yi iyo talaa kaa qalloocan karta arrin masale iyo sharciga kaa khaldami karta adoo yaqiinay bay naf iyo shahwo ku jiidan kartaa adoon aqoonina bay kaa hoos bixi kartaa dadka aad wax isku qabanaysaanee mujtamaca macallin baa tahay ardaydii iyo waalidkii iyo waa inaad qof soo noqosho le tahay oo haddii xaajadiiyo lagaa helana wixii ka dhacay ka garaaboo raalli geliya haddii adiguba adoon lagaa haynin aada aragto in wax kaa khaldameenna asagu ka laabta aada noqoto xaqoo loo soo noqdaay nafta bini aadamku marar badan waxay u akhridaa meel kaga dhacaya sharaf darray kugu tahay nin weyn hadal ka dhacay waa geed qolof ka dhacay bayna ku dhahayaan laakiin ogow oo ibliisna wuxuu intaa ku mutay ku adkaysigii khaladka aadamna waxaa loogu dhaafo oo janno lagu ku mutay kasoo noqoshadii khaladka xaqoo loo noqdo waa fadiila gartii lagaa lahay ood ka garowdana waa fadiila dadku waa inay kugu bartaan mas'aladaas haddii lagaa helo intaa istaagteen haddii masalada waan ku khaldamay sidaa kalaa saxahay haddaad qof ku khaldanto oo laguu caddeeyo oo lagugu caddeeyo ad ku khaldan tahay intaa istaagtood cimaamad madaxa ka saarto inaad tiraahdo raalli ahow intaa haddii lagugu barto khaladkaagu wuu yaraanayaa adigana waxaad hadhow ka noqon lahayd ku dhicistiisa way kugu yaraan
waxaad noqon ninkii carabkaa yidhi inii wacaqlii sulaykan qatlii sulaykan uma caqilahu maxaa ka dambeeyey kathawri yudrab lama caafat ilbaqar hebel inaan dilo kadibna magtiisa bixiyo waxay ila mid tahay buu ihi dibi biyo aan garaacay oon kadibna gudayo dhinaca marka loo akriya waxay ka dhigan tahay mar haddaan magta bixinayo diliba maayo mar hadday noqoto mag inaan bixin doona ay noqoto marka horeba dili maayo waxa dhow inaad noqoto dabeecadaadu inaad ka noqoto ay tahay marka hore aad ka fiirsan haddii wax kaa dhacana dadku yaa fiican nin markuu khaldamo garaabo qofkiina raalli geliya iyo nin ku adkaysta nin garaabo raalli geliya ka fiican dadkuna ka jecel yihiin qofkaa la jecel yahay hadhowna dadkay dhihi kara wareedhe waxaan waa laga waad gar darantee ka garow ku dhihi kara anigu shalay markaan khaldamay hel waakaan ka raalli geliyey nin waxaan ka raalli geli waa lagaa garaysan karaa laakiin hadday tahay maba khaldamo gartana taan idhaahdunbaa ah halka hadday kaa gaadhaaye dadka oran madax adago waxba ma galaan baa lagu dhihi dadku ay ku akhriyayaan goobjoogna waa yihiin raallada waa idinku dheereeyey ilahi subxana wa taala khayrka allah ina waafajiyo وما سنجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله